السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aanu runta isu sheegno ma sahlana in si joogto ah loo kaco waqti hore subax kasta siiba ahaan markaanan qorraxdu soo bixin ee ay weli mugdi tahay. haddana iyadoo ay saas tahay waxaa la ogyahay in dadka nolosha horumarka ka gaadhay ay badankoodu kacaan 5 subaxnimo iyo wixii ka horreeyaba. su'aasha meesha taallaa waxay tahay maxaa ku sababay ama ku kalifay in ay waqtigan hore hurdada ka toosaan. odhah ayaa jirta oo ay dadka taajiriinta ay caan ku yihiin oo ay inta badan isticmaalaan. odhahdaasi waxay odhanaysaa haddii aad ka guulaysato subaxda waxaad ka guulaysan doontaa maalintaas oo dhan. fiidiyogan waxaa ku soo qaadan doonaa 5 faa'iido oo ay leedahay kicitaanka subaxdii iyo 5 talooyin oo ka caawinaysa qofka ay ku adag tahay toositaanka subaxdii. faa'iidada koowaad ee ay leedahay kicitaanka waqtiga hore waa inaad helaysid waqti badan oo aad riyooyinkaaga ugu muhiimsan kaga rumayn kartid. tusaale yar haddii aan soo qaadanno, ma og tahay in haddii aad hurdada ka kici lahayd 1 saac oo keliya ka hor waqtiga aad iminka ka kacdid aad sanadkii heli lahayd waqti firaaqo ah oo u dhiganta 15 maalmood. waa wax la yaabo runtii markaannu dhinacaas ka egno. 1 saac keliya oo aad waqti hore kacdid ayaa waxay u dhigantaa in aad 15 maalmood oo dhan oo dheeraad ah aad sanadkaa helaysid. run ahaantii 15 maalmood wax yar ma aha, waa maalmo aad wax badan oo aad doonaysid ku qabsan karto. markaa daawade ka fikir arrintan, iskuna day inaad waqtiga aad iminka kacdid aad waqti ka horreeya toostid. qodobka labaad ayaa ah in wax soo saarka subaxdii uu ka badan yahay kan maalinta amaba habeenkaba. marka aad wax qabanaysid subaxdii ma jirto cid ku mashquulinaysaa, telefoon ha ahaato ku soo waca amaba qoraal bee, sababtoo ah dadka badankiisuba way hurdaan. taasi waxay kaa caawinaysaa in arrimahaaga ugu muhiimsan aad ku qaban kartid subaxdii si ka dhaqso badan intii aad ku qaban lahayd galabtii amaba habeenkii. waad qabsan kartaa galabtii amaba maalintiiba, laakiin waxaad ogaataa in wakhtiga aad mashruucyadaada ku qabanaysid uu ka badan doono kan aad subaxdii ku qaban lahayd, sababtuna ay tahay mashquul dad, mid social media ha noqoto amaba mid faamilka aad la joogtida. qodobka saddexaad oo run ahaantiina ah kan ugu muhiimsan ayaa ah inaad helaysid wakhti aad ku cibaadaysato oo aad allahna ugu mahadnaqdo. wakhtiga badan ee maalintii waxaynu ku mashquulsannahay oo aynu raadinaynaa nolol adduun. markaas waxaa muhiim ah in aan la ilaawin nolosha muhiimka ah ee aakhiro. mar kastana waa ay muhiim tahay inaan isku dayno in aynu isu dheelitirno. subaxdii markaad soo kacdid cibaadayso, qur-aankana ha ilaawin inaad akhridid ama aad dhegaysatid. samaynta arrintaas waxay kaa caawinaysaa inaad subaxdaa iyada ah aad khayr ku bilaabantay, maalintaasna allah uu ku fududayn doono. qodobka afraad ayaa ah inaad helaysid wakhti aad ku jimicsatid. jimicsiga subaxdii waxay kaa caawinaysaa inaad maalintaa ku bilowdid firfircoonaan, maalintaasna maskax ahaan iyo jidh ahaanba aad diyaar u tahay. khasab maaha inaad 30 minit jimicsatid subax kasta, 5 ilaa 10 minit oo guriga dhexdiisa ah wuu kugu filan yahay haddii aadan awoodin inaad bannaanka u baxdid. inta badan waxaa dhacda in caajsi iyo daal aad dareentid marka aad shaqada amaba iskuulkaba aad ka timaadid, taas oo keenta inaadan awoodin jimicsi. laakiin haddii aad subaxdii samaysid, fresh ayaad tahay, wakhti badanna kuguma qaadanayso inaad dhammaystirtid. qodobka 5aad ayaa ah cunitaanka quraacda. quraacdu waa cuntada ugu muhiimsan ee maalinta, haddana iyadoo ay saas tahay dadka badankoodu ma helaan wakhti ay ku samaystaan quraac. quraacdu waxay siisaa jidhka iyo maskaxdaba shiidaalkaas oo kaa caawinaya inaad maalintaas u qabsatid wax kasta sida aad doonaysay. adigoo aan quraacan waxay la mid tahay adigoo gaaray bilaabay shidaal la'aan. haddii aad tahay qof ay aad ugu adag tahay kicitaanka subaxda hore, waxaad raaci kartaa 5 qodob ee aan ka hadli doono iminka. 1. si tartiib ah u bilow. haddii adoo caadiyan hurdada ka kaca 8 subaxnimo aad go'aansatid inaad berito aad rabto inaad sariirta ka kacdo 5 subaxnimo, waxaad ogaataa in ay kugu adkaan doonto. maalmo yar kadibna aad isdhiibi doontid. waxa taas ka fiican waxa weeye in aad si tartiib ah u bilowdid. isku day inaad 10 ilaa 15 minit ka hor aad kacdid wakhtiga aad caadiyan iminka kacdid.
haddii aad markii hore kici jirtay 8 subaxnimo waxaad iminka isku dadaa inaad kacdid 7:45 ilaa 7:50 waxaad sidan ku wadi kartaa hal week ama 2 week hadba sida aad dareemaysid haddii aad dareentid inaad ku fududahay inaad 7:45 aad kacdid waxaad isku dadaa inaad 20 mirir ilaa 30 mirir aad ka dhigtid taasoo ah micnaheedu tahay inaad kacdid 7:15 kadibna aad sida ku sii wadid ilaa inta laga gaarayo inaad kacdid waqtigii hore oo aad waxyaabo badan oo riyooyinkaaga ah aad kaga qabsan kartid 2 isku day inaad seexato waqtiga hore ee aad seexatid waxay kaa caawinaysaa inaad hesho hurdo kugu filan taasina waxay kaa caawinaysaa inaadan daal badan dareemin subaxdii 3 waa inay jirto sabab aad u kacdid marka aad habeenkii sii seexanaysid haddii aanay jirin arrin muhiim ah oo aad doonaysid inaad qabato maalinta ku xigta way adkaanaysaa inaad subaxda kacdid marka isku day in habeenkii marka aad sii seexanaysid aad ka fikirtid wax wanaagsan oo aad qorsheynayso inaad ku guulaysato maalinta berito ah 4 inaad alarmiga aad ka fogeysid meesha aad jiiftid iyadoo aad habeenka waqti hore seexatay waxyaabo muhiim ahna ay jiraan oo aad qorshaysatay inaad subaxda samaysid haddana run ahaantii way adag tahay inaad hurdada si dhaqso kaga kacdid marka waxaa muhiim ah habeenkii markii aad sii seexanaysid inaad alarmiga ama mid moobil ha ahaato ama mid alarm nooc kale ha ahaatee aad ka fogeysid meesha aad jiiftid inaad iska fogeysid alarmiga waxay subaxdii kaa caawinaysaa inaad kacdid marka aad doonaysid inaad damiso alarmiga haddii alarmiga oo ku dhinac taalo adigoo indhahaas ka haysta ayuunbaad gacanta la tiigsanaysaa oo aad damin karaysaa laakiin markii ay kaa fog tahay waxay noqonaysaa inaad kacdid si aad u soo damisid 5 inaad isla markiiba daartid laydhka marka aad saa meesha aad jiiftid uga kacdid ee aad alarmiga aad soo damisid intaadan sariirta aadan dib ugu soo noqon waxaad isku dadaa inaad isla markiiba aad leydhka daartid markaad meeshii aad jiiftay ka kacday leedhakiina aad shiday waxaba yaraataa hadhi ma jiraan marka waa inaad subaxda aad ku faaftaa riyooyinkaagan aad kaga rumaysaa daawada haddii fiidiyogan uu ku qanciyey fiidiyoya kale oo noocan oo kalena aad doonaysid inaan kuu soo gudbinno waxaanu kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirtid laagta iyo sabskraibtana aad naga ilaawin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu